shubaan weligeed ku deeqi mayso waxaad adigu gacantaada ku qabsato iyo maskaxdaada iyo taladaada iyo garashadaada waxaad ku qabsatay wax ku deeqi kara intaasaa jira oo uu la jiro iimaan iyo kalsooni aad naftaada iyo dalkaaga iyo diintaada ku qabto wax kale ku deeqi kara ma jiraan Soomaaliya dantaada u jeeso iska daa indhaha u taagayso dalal kaleeto iyo wixii ka imaanay warkacay aynu tabcanay beereenaan tabcan oo badeena kala soo baxnay wax ku yaa oo xooleenaan xanaanaysano aan ku noolaano wixii waxayna dheer aynu kaalmaysano asaan cadow ku ahayn dalkeen iyo dadkeen arrin intaas weeye diintaan ku nabigeennii suubanaa maxamed tawrad buu sameeyey ilaah baa u dhiibay tawradda ku ahanay tawrad buu sameeyey meel adduunka aad tagto aadan dad islaama ku arkayn yaa fidiyey waxa yaa gaartay tawraddii nabi maxamed loo soo dhiibay ilaahay u soo dhiibay baa fidisay oo qof walba oo islaama taasaa saaran gacanku markuu dhashay waa shirinay waxaan hor dhegaysta waxaynu caabudnaa waa ilaahay weynaa waaxid ah wuxuu inoo soo mariyey oo inoogu sheegay dariiqaan raacinayna kitaabkiisa kariimka wuxuu inoogu soo dhiibay rasuulkeennii suubanaa inoogu soo dhiibay inoogu soo dhiibay waxaa halkaas ka soo ifbaxay ficilkii iyo qowlkii nebigu uu ka tegey ayaa ka soo ifbaxay xadiis buu noqday marka qof walba dariiqadiisa ha haysta hadduu doono laakiin midka inaga dhexeeyaa waa tiirkaas dariiqada wado laakiin kaas uu ilaahay guddoonshay ummaddaas aan abuurtay inta midowdaan ha kala furfurmina taasoo ha noqota asalkii dariiqa la raacaya kaas way ku dhaqaaqeen mahad iyo ammaanba waa u jeedinaynaa haddaan taariikhda dib u raaco culimadii la tirinayey ama tawriyiintii la tirinayay magacyadooda waxayan kuwii badbaadiyey kollayba dadka Soomaaliyeed inay baaqi ku ahaadaan islaamnimadooda dawladdu markii ay gaarto go'aan ama sharciga qaranka la dhigo fuliyayaal bay u baahan fuliyayaalkii adinka weeyaan waaxidinta weeyaan dariiqooyinka weeyaan madaxda masaajidka weeyaan iyagaa la rabaa inay fuliyaan iyagiyo wasaaradooda yaa mas-uuliyad dul saaran dagaalka labaad waxa weeyaan midka dhaqaalaha waad ogtiin macaashadu meesha ay sii marayso haddaynaan annagu inta marada dhexda ku xiranno adkaysano aynaan tabcinna weligaan ka bixi mayno guni iyo gacan horsi baan u dhammaanaynaa ma guni iyo gacan horsi baan ku jiri karnaa insaanku sharaf buu leeyahay karaamuu leeyahay oo maanu inta ilaaheen cuskano iyo nafteenna maynu qof iyo yaanba inta qaato waa ka halka aduu ka baxay maanu wax ku abuurno bal qof walba gurigiisa muu ku abuur geed lima inuu bixiyeen ka arkay oo geed babaaya ku abuura oo geed camba ku abuura waa baxaya qof gurigiisa oo sabaxay ma jirto waxaan kaga bixi karnaa inaanu u jeesano taab kii badgala ha galo kii biri gala beeraha ka doonto kii xoolo haysta ha tabcado ha xanaanaysto kii wax kaleeto oo qiimo leh qabanaya ha qabto qof gaajaysan gob ma ah gun wey wixii la rabo iyo dantii la rabaa laga samaystaa oo maxaanu nagu kalifay inaanu saas u guroono dadkeena inaan jahayna doonaya inagaa la rabaa inaan jahayno tan saddexaad waa dagaalka shacbigeenna lagu abuuray in maanta 16 sano kadib oo dulligii foosh xuma aynu ka soo baxnay dad ahaan iyo qaran ahaanba haddana la doonayo dib in loogu celiyo qabiilkii xuma oo isticmaar ka dambeeyo waa isticmaarka xabashida waxaa loo baahan yahay ummadeenna inaynu hanuunino oo culimadiinaan waaweyn weliba aad maraba dhexda ugu xirataan ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inay ku tasaasiyaan oo kor uga hadlaan oo si geesinima uga hadlaan inay ummadooda toosiyaan oo ka hanuuniyaan dariiqa jahannamka ah dariiqa mustaqbalka ay ku leexiyaan والسلام عليكم ورحمة الله